Rushka Moscow, Monastery e Donskoy. Cemetery of Russian aristocrats. There are a lot of ancient tombstones. Tani waa qabriga Prince Nikolai Vezemsky. Wuxuu ku dhintay 1846. Tombstone made of red granite. Made in the form of a conical urn. The tombstone is mounted on a concrete stand. Tayo aad u sarisa oo la sameeyay. Dusha granite ee siman habayn sax. Ma jiraan wax tol ah oo u dhexeeya qaybaha kala duwan ee dhagaxa xabaasha. This is a single piece of red granite. Here is the bottom edge of the tombstone. Oo korka waa hal monolith oo aan lahayn tolmo ama kala goysho. A perfectly crafted solid piece of stone. Mirror polished stone stand. There is a black granite tombstone on the stand. Hal gabal oo granita oo aan lahayn tolmo ama kala goysyo. Pommelku wuxuu ka samaysan yahay bir. Kubad bir ah iyo isku tallaab. Addoonkii Ilaah wuxuu ku dhintay 1848. There are many similar tombstones here. The tombstones have a complex geometric shape. But the tombstones are monolithic. Laga sameeyay hal gabal oo granite ah. And polished to a mirror shine. 200 sano ka hor dadku waxay si sahal ah u samaysteen dhagaxyo adag oo dhagaxyo ah. Taas macnaheedu waxa weeye in 200 sano ka hor dadku haysteen khayraad iyo tamar ku filan. Wixii soo saarista alaabada qaabaysan ee adag ee granite adag. They made many such monuments. 200 sano ka hor dadku waxay lahaayeen heer tamar iyo technology oo aan maanta ka xumaan. Ancient tombstones tell us this.